sacaado doonayso mujtamacu doonayo dadku doonaya waa inay iska daayaan dembiga laakiin dad alla ka durka oo ku gacan sayray oo faasiqiin oo faajiriin oo ilaahay caasiyaya oo ilaahay ka amar qaadan sacaado way ka dheertay waa ilaahay baa wuxuu wa wadacna anka wizrak waxaanu ka dajinay dembigii ku cuslaynay dembigii baanu ka dayn dembigii hore iyo kii dambe bay ilaahay uu ka dhaafay dembiga laga dhaafo waxa sabab u noqonaya adigu horta iska dayso marka qofkii kolka uu caasi yahay sacaado meelay laakiin markuu ilaahay caabudayo sida ilaahay baa ugu manna sheegtay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam sacaado helaya marka arintaasina inaynu ku baraarugsanaana aad bay muhiim u tahay markaynu nolol horu marsan oo qiimo badan ka doonayno ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mujtamaca iyo dawladda iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo dalka dhinac walba leh waa in waxa caasinimada la ilaahay alla ka fogaanshaha iyo duruubta lala dagaalamo oo laga soo horjeedsado asalka afraad waxa weeyaan rafcu dhikri wa husnu dhikr fi al-aakhirin aw al-baaqiin qofka inuu ilaahay sumcad siiyo ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba adduunku ma aha kaydka laakiin waa ammaanta wanaagsan ee ummadaha ilaahay uu ku dhaxdhigay iyo qabuulka qof walba qiimihiisu wuxuu yahay inta qabuulkiisu yahay ilaahay uu aqbalay ummaduna ay aqbasho waa aayada ilaahay wuxuu warafacna laka dhikrak sharaftaadii baanu kor qaadnay oo waanu ku sarraysiino ummadda dhexdeeda ammaan baad ku leedahay gaalada kuwa munsifiinta ah ee cadaaladda sheegaa caalamka inuu kow ka yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidda ammaanta le ayay qiraan kuwooda wax qoraa qaar badan oo ka midii warafacnaa laka dikrak sidaasuu lahaa nebiyullaahi ibraahim wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahay ummadaha iga dambeeya ammaanii dhexdhig oo mid ka eedaysan aanan noqonin ilaahayna wuu aqbalaa wuxu uhi wajacalnaa lahum lisaana sidqin caliya nebi ibraahim iyo inamadiisii isxaaq iyo yacquub ammaan fiican baanu ummadaha dambe ugu reebnay dad badani waxay ku ordayaan inay kursiga ka helaan magaca kursiga ka helaan manfaca iyo maalka laakiin waxaynu arkaynaa malaayiinu shifaah tusalli calayhi sala allahu calayhi wasalam intaasoo milyan oo dibnood baa mar walba ku saleeya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waa inaynu ku xisaabtannaa qofku inta uu adduunka joogo war wanaagsan inuu ka tago kolla waari maaye taasoo dad badani maanta qalad ay ka fahmeenoo qofku odhanayo waxaad doonto iska samee waxaad doonto fal oo aad doonayso qaado marka magaca inuu qofku ka jiro iyo sharaftuna aad bay u qiimo badantay sidaa ilaahay ugu manno sheegtay nebiga calayhi salaatu wasalaam asalka lixaad waxa weeye cilmu linsaani bianna maca alcusri yusra waa inaynu qanaacad lahaanaa si aynu sacaado u helno oo aynu ku qanacsannahay adduunkani dhibkiisuna joogta maaha dheeftiisuna joogta maaha waa meel dadka lagu imtixaano laakiin mar kasta oo dhibaata ay kugu timaado dheeftii ilaahay baa soo socotay ogow ilaahay baa wuxuu uhi faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran faina maca alcusri yusran markuu cusri iyo dhibaata ay timaado hadda yusri baa jira ogow baa ilaahay sidaa daraaddeed ba axadu aclaami salaf waxa uu lahaa taabiciintana mid ka mida buu ahaa asxaabtana mid ka mida lan yagliba cusrun waaxidun yusrayni kadeed quri laba faraj kama adkaado markuu ilaahay dhibaato kugu rido laba dheefood buu soo wadaa marka taasina waa mid aynu ku qanacsannahayoo qanaacadda noocaasa markaad hayso ee aad leedahay dhibka maanta ku haya ilaahay baa jira farajkii ilaahay baa soo socda farajkii ilaahay baa dhow ee aad ducaysanaysa dadaalayso taasina sacaadaday ka qaybtay qofka kalena balaayada ku dhacdaba kama soo hadhaba asalka lixaad waxa weeyaan faina maca alcusri yusran faina maca ereyga maca baa laga faaidaysanayaa waxa weeyaan maa min yusrin ilaa wa macahu lcusr ilaa maa min cusrin ilaa macahu lyusr dhibaatadu markay timaado dheefta ilaahay iyo farajka ilaahay kama hadhayo wuu ku xigaaba wuu ku xigaa waayo maciya ilaahay uu sheegay markuu dhibku yimaado dheeftiina way ku xidhiidsantahay ba ilaahay maalmahay kugu adagtay buu farajkuna kugu dhow yahay ari asalka kale weeye asalka toddobaad aynu ka faa'idaysanaynaa waxa weeyaan maa jacala allahu cusran ilaa jacala lahu yusrayni saddex siyood baa looga faa'idaysanayaa jumlada mutakarrirkee soo noqnoqotay markuu ilaahay dhibaato keeno dheeftu way labanlaabantay
ورحمة إلهي أضوامها ونحريسنا وأي نكرة سالقة فإذا سنة يا إريق عسرنا لبتشير بإلهي سعلي سقى معرفها كيونا إريق يسرنا لبتشير بصانة سقى نكرة كلا دوان كان هدي دبعتك كويسته كنت لقى لورد يفتي لهي وين لبلابنت بديل بو لهي كسينا يا فرج بو كسينا يا أجري بو كو قرية صبر بات كو هليسا مركا تانا ينو قفكو أوغادو أو كنت لقى لوي لكن أنا أورانين ما أنت هدي لقو هلي وي كودا مات قفك مسلم كاي دبك إنو كم عاشا يا أبوغي مركا السعادة دي بو هلي يا واسكر راحي سنة يا وحي دعابا وكدو عاي سنة يا واسكو هشنا يا وصبر يا وصوشا وحا كم إذا لابد أن نستثمر الفراغ بالخير جانسك أينو هينو إنه خير كوقفة إذا يسنو سعادة ذي كمت إلهي بأوحر فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت مركة جانس يالت فانصب تعب قل وفراغا يفقع عن بنانان تا فرصة هذا الشيء هكو قادني وحبلا معناها اسك عيارة إيا وقت قلت له هذا وان دمين يا وان لمن يا كداتها لكن wuxuu leeyahay ilaahay markaad gacan banaanaatay jaanisasho tacab gal oo tacab samee marka faraaqa dadku siday uga faa'iideystaan iyo gacan banaanaantooda ayay faa'iidadoodu u kala badataa adduunyo iyo aakhiraba haddaad aragto ummad marka ay jaanistaan asxaab albadaala bilaa macno ku nool adduunyo aakhira midnaba ma horumaraan nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nicmataani maghbuunun fiihima kathiirun min annaasi as-sihhatu wal-firaaq ummadda laba nicmo ilaahay uu siiyo in badan oo kamid ah way ku lugoyeen waa faraaqa iyo jaaniska ay haystaan iyo gacan banaanaantooda aanay mashquulsanayn iyo caafimaadka qofkii uu caafimaad qaba ma cudursana cidhiidhi iyo kuma sugna deeqad laakiin waa caafimaad baa ilaahay uu siiyo mana mashquulsana labadaa nicmo in badan oo dadka kamid ah way ku lugoyeen buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam aayaddu markaa waxay noo tilmaamaysaa qofku markuu saciid noqonayo liibaana faraaqiisu wax fiican uga faa'iideystaa asalka sagaalaad waxa weeyaan min asbaab as-sa'aadati aw min usul as-sa'aadati al-ibaada qofku inuu alla caabudayo waa usuusha laga helo sacaadada iyo nolosha wanaagsan oo qofka caabidka ah kii caasiga soo sheegnay kaasa wuxuu helayaa sacaada iyo liibaan jannada aakhira intaanu helin buu jannada adduunyada sii galaya marka waa la caabudayo qofku naftiisa deganaansho helaysa nolosha ilaahay u barakeynaya subhanahu wa ta'ala iyo waxa uu hayaba farxad buu ku noolaanaya marka dad caasiinihi ma helaan shayga la yiraahdo nolosha wanaagsan iyo saa horaba aynu soo aragnay iyo farxadda waa ilaahay wuxuu fansab fa idaa faragta fansab nafsabku waa maxay waa tacab daaru tacab baa la yiraahdo halka waa halkii laga sii shaqaysanayay laga tabcayay si raaxada dambe iyo jannada loo helo ابن تيمية رحمه الله وحول لها من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا ده قف كان سيقلين جنة الآخرة ما قالوا جنة الدنيا ده وامحي ومعانك عبادة ده أنه كسو الرمين مالين تدوي أرنت طبنا هذا أصول السعادة ده سورة آية تلمان توحويا الإخلاص من أصول السعادة طاعة لماذا يني السمانة يا أديكو آية كان مقانت اسم قشين تيستسنمدو iyo inaad cid kale eegto aanad ilaahay eegin arrinkaasina waxa uu keenaa nasashada iyo nolosha macaan buu keenaa marka qofka uu ka ikhlaas badan yahay uu ka daacadsan yahay uu ka niyad wanaagsan yahay sacaadu helaya nolol farxad leh dadka in badan waxa cidhiidhi ku abuura oo hebelba kuma arag oo waxaagii lama ogaanin be marka saciiliya caru qaadaya leena cid daciifa buu istusaya laakiin qofku markuu ku qanacsan inuu ilaahay arkayo subhanahu wa ta'ala ilaahayna waxaan ula jeedo noloshiisu raaxay helaysa nin shaaciraba wuxuu leeyahay walastu ara sacaadata jamca maali walakin at-taqiy huwa as-sa'id wa taqwa allahi khayru zadi dhukhra wa 'inda allahi lil atqa al-mazid xoolo la ururiya anigu ma arkabu sacaade alla ka cabsiga qofka ehelka waaba saciida kayd weyn baa ilaahay agtiisa u yaala qofka ilaahay ka cabsanaya subhanahu wa ta'ala iyo dheeraad marka waxaynu ku soo ururinaynaa arrinka maanta tooshka loo sito ee dad badan uu leeyahay raaxada adduunyada waxa aayada suuradaasi ay cadaysay koobani 10 ka meelood ama 10 ka mister in laga qaadan karo shayga loo yaqaan nolosha wanaagsan macaan ee raaxada leh ilaahay baynu baraynaa inuu na waafajiyo oo nagu hanuuniyo